بسم الله الرحمن الرحيم. ولكم كنت كورس كالي inventory management chapter 1 part 2. Inventory management هو محل. Inventory management is a branch of the business management that covers the planning and controlling of the inventory. Inventory management هو حويان وقيب كميدا أما branches كميدا علامة كميدا علامة business management أما مارينكا business كا taasoo dabooleyso ama ku fargaraynayso sidii loo qorsheyn lahaa iyo sidoo kale loo control lahaa waxyaabihii la soo iibsaday inventory-ga ama alaabihii la soo iibsaday. taasi waxay leedahay inventory management. The priority planning determines what the materials are needed and when they are needed in order to meet the customer's demand. Priority planning qorshaha loo dejiyay ama qorshaha loo dejiyo marka hore priority ahmiyadda loo siiyo waxa weeyaan in go'aanka uu qaato taasoo material nooca ay u baahanahay iyo sidoo kale goormeen u baahanahay in order to meet the customer's need. haddii aad rabtid businesskaaga marka customerka inuu waxyaabaha baahiyaadkiisa ay rabtid customerku muxuu u baahan yahay goormeese u baahan yahay alaabaha loo soo iibinayo. And the capacity planning determines capacity planning kana ama qorsheynta capacity hadda inta in qorshe loo dejiyo waxay ka qaadanaysaa ama go'aan ka qaadanaysaa the amount of the capacity required ama intiga aad u baahan tahay ma aad u baahan tahay 2 container 3 container ma u baahan tahay each period execute period plan ama each period walba wuxuu leeyahay execute plan ama qorshihii la dejiyay in la fuliyo period walba ama xilli walba wax la talbana. There are various ways to conduct priority. siyaabo badan baa jira oo loola xiriira priority ama ahmiyadda waxyaabaha aad siinayso and capacity planning waxa weyn waa feasible oo wax muuqda. Solution is that statistics customers satisfies customers requirement may not be good enough. solutionada inta badan waxa weeye waa kuwa inta badan ugu qanca waxyaabaha ay customerska ay rabaan mar walba ma ogaan kartid waa inaad sameysaa mar walba capacity planning and service. We demand a good plan that satisfies customers while they maintain the lowest possible total cost. Marka inta badan waxaa la dejiyaa customer satisfaction baa la dejiyaa qorshayaashaas oo la doonaya in lagu minidkan gareeyo lowest period ama lowest possible qiimaha macquulka ah inaad ku siiso customers total cost-ga aad ku siisan waxaa laga rabaa marka low cost inaad bixiso iyo high quality alaab. Assalaamu calaykum warahmatullaahi